maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamida kuwii aan horay u gari jirnay waa mid saamayn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dawladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacay mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Somaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo Hargeysa mushaar looga raadsado gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ixtiraaf lagu raadsado oo lagu baryo tago gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa haddii Allah idmo sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha Puntland tan iyo markii laascaanood la qabsaday reer Sool waxay ku jireen dulunibo cagajugleyn isku dir iyo dil joogta maantana waxa loogu daray caburin xabsi joogta ah in la yiraahdo dalka malihidiin ee iskaga guura sidaa darteed waxa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dawladdu wada shacabka Puntland waxay dawladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sano ee soo socda musabiixi waxa leeyahay xaasha lilaahi beenta waa laga xishoodaa wada hadal ayaan federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaa soo xirayaa ixtiraaf baan doonayaa horaa loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iriye kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kiifalay musabiixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Soolna siiyay waxaan u sheegaynaa Ingiriis dhulkan ma laha wuxuu ahaa gumaysi maalmo joogay oo aan iska xoreynay kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiigooda u huray